dhalinyarada in ay bartaan baan rabaa oo dadka si ay isu bartaan isu jiitaan baan u sheegayaa magacyadii meelaha direed ay hadda aqoon lahayiin oo hadda muxuu ah ay kickicinayaan sidii muxuu ah nin alafbeeta loo dhigaya camal haddii aadan si aad u wada dhalateen aadan u aqoonin sideed u midoobaysaa ma maalin kasta waxaad dhahaysaan ii sheega magaciis meelaha direed ee degaan dinta koonfureed annagu mameelis baan ku diri karnaa war sida aad muxuu ahaa aan noqonno waxaa awal haddii aan jiifanay hadda in aadan dib loo jiifanin oo jiifka lasaga kaca dadka uma xamidin idinkaa u taajirsan idinkaa u aqoon-yahan badan idinkaa u taariikh dheer waxaan sheegaya odin leeyahay qolooyinka dinta koonfureed waxaan rabaa haddii aad soo kacdeen allah idin kiciyo ilmaad ku soo jeedeen ilna waad guurdayseen adduunyada inta la kala qaatay oo la kala muxuu ahaa dhistay hurdaan ku jirnaa hurdona waxba tari mayso in aan mustaan jiifka uga kacnay aan muxuu ahaa aan u dadaano ayaanu doonaynaa dadka horta wuxuu wax qabsan karaa marka dadkiisa iyo dalkiisa uu madax bannaan yahay haddii dalkaada iyo dadkaada la dhex walaaqaya ee waxa aad samaysa maanta gadaashaada la furfuraya dhibkeeda ay leedahay waxaan idiin sheegayaa dinta koonfureed gobolladii iyo degmooyinkeedii uma madax bannaano insha allahu tacaala waan u madax bannaanayn doonaa aan isu duubnaano aan wax wada qabsanno oo jiifka ka xaleeyo waxaa kale waan idiin sheegayaa nimanyow nimankeena muxuu ahaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo muxuu ahaa nooc walba siyaasiyiintu waxaad moodaa waxoogaa bustooyinka inaad aad u qoysateen oo jiifka aad dheeraysateen ayaan qabnaa daliil weyn baan idiin soo jeedinayaa hadda waxaa halka ku jiray inaan is dhaliilin laakiin waxaa leeyihi eysanan wataa haddii aan aamus eysanan watan arkaya waxaan arkaynaa in muxuu ahaa dabacsanaantu siyaasadda ay ka timid wasiiradan ay ka yimaan war nimanyaha ummaddan inaad hagtaan baa ladinka rabaa ummaddan inta ummadda ay qabtaa odayaal ba ay leedahay ugaasiin ba ay leedahay suldaanma ay leedahay nabadoonna ay leedahay taariikhda ay leedahay dad aanan weligood aana seexanin oo jeefka habeenkii 2 saac ku hurto ayay leedahay haddii aan la hogaaminin oo aan la garqabaninna hadda waxaa weeye mutacajisana noqonaya caajiska in laska kiciya doonina waxaan rabaa aad iyo aad waad mahadsantihiin aad baan u bogaadeynayaa shirkaan muxuu ah maanta intaan dhigtan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa sida looga sheegay shirkaan in shirarka aanu badin doono oo mid ku xigi doono mid labaad ku xigi doono oo midka saddexaad laga dhigi doono shabeellaha hoose aad baan u soo dhaweynayaa waxaa weeye intaa haddii la helo wax badan baa isku daanaya nimankaan hadda qabanaa ugaasyada waxaan leeyahay yaanan seexanin yaanay gaajoonin annagu waajibka aan leeyahay inaan qabsanaa doonaynaa war ninkii jiifka ka cadhaano war wixii siyaasiyideena iyo wasiiradeennana aan garab galno oo mar walba albaabka aan ku garaacno oo aan muxuuha jiifka jooga aan u diidno waa nagala kacay u malayn maajinaan sida kusii socon doono haddii alla yidhaahdo waana soo kacnay haddaa hurdada ka soo kacna camal ay noqonaysaa ummadda 10 sana ka hore hurdada laga wada toosay annaga baasha ay nagu reebeen oo igu muxuu ahaa bustooyinkaana saaran bustooyinkaas ka qaadno aanu dadaalno aan dhulkeena iyo dadkeena iyo dadkana aan kor u qaadno wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu